السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali maxamed waan salaamay salaanka bacdi. Dalkeena waxa uu colaada iyo khawaarijta iyo abaaraha iyo rafaad uga bixilaya. Waa dadka dhacaya. Waa dadka dilaya. Waa dadka aan isu naxariisanaynin. Balaayig dalkeena Soomaaliya. Dadkeena Soomaalida uu ku yaraan jiray qof la leeyahay waxa ku dhacay kansar. Wuu ku yaraan jiray qof la leeyahay ama jirin wax la dhaho AIDS. Waxa cudurrada xun ugu dhacay mataqaana waa xaaraanta. War miyaad aragtay qof Soomaali ah oo Islaam sheeganaya oo khamaar ciyaaraya XP1 maxaan ku radaa Hiiraan xaafadihii baa gabdhihii hooyooyinka lagu dhacay telefoonada laga dhacay magaalada Isbaara taala oo magaalada ka bixi dad war qof aad taqaanid oo Soomaaliya hore loo yiri moogtahay geeridu waxay ku fiican tahay leedii nimaan aqoonin gal jire walaalka ood kaga soo tagtay magaalada taqaanid Faarax iyo Axmed asleedihiin seed Isbaara magaalada ugu dhigataa war Soomaaliya waxan iska qabta war odayaashii deegaanka joogay away war culimadii away war waxgaradkii away war dadkan Isbaara idin dhiganaya idinka ka dhasheen idinka idin maartay idin jeedane dadka ka qabta idinka iska qabta war seed u ogolaataa adiga oo nool oo xayo caafimaad qabo Ilaahay iimaan ku siiyay qof mooryaano magaalada kula joogi jiray intuu qori qaato banaanka inuu istaago ku dhamo Soomaaliya ilaa lacag bixismowgii war damiirka ha shaqeeyo Soomaaliyeey damiirka ha shaqeeyo waa waxa Itoobiya oo bad kugu lahayn badaada kugu dhigantahay aad oo la fariisanaysid sideed oo la fariisata badan adaa iskale Itoobiya ma hor fariisanayo handay baday soo aadana xabada madaxa gelinay ma tiraahid sideed Itoobiya hor fariisata Itoobiya dalka mayda iskale bada mayda iskale war maxay nagu leedahay maxay nagu darsataa naga war dadkan maxay ahaan wada jilicsan tahay maartay meesha fadhiya GB-gii war dadkan aad u dareysaan Itoobiya la fadhiya oo la hadal la galaya maxaa la hadala war Itoobiya in waxa laga sugayay aad dalka haysato ka soo dhicisaan dawlad deegaanka haysato in laga soo dhiciyay qaabkii looga soo dhicin lahaa inaad u fikirtaan bay ahayd siyaasiyiinta ku sheegay meesha fadhiya ma ahan in Itoobiya intay dalkii qaadatay dawlad deegaankii haddana ay kugu sii haysato badahaaga rabaa oo gorgortan la gashay Turkiga heshiisii way inoo tahay baan ku saaxiib laakiin waxaan idin sheegayaa in dalkan Soomaaliya uu wali ragii lahaa ee Soomaalida ahayd SYL ay nool yihiin baan idin sheegayaa saa oo la socda war kilibkan fogeeyo u gaarsiiyay nimanyo madaxtooyada gaarsiiya iyo kuwa Itoobiya hoos fadhiya hadda leh maxaan ku la heshiinayna in kilibkan loo geeyo Itoobiya lama fariisan karo in la fariistaana waa khalad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.